Yurub waan jeclahay in aan tagana waan rabaa Yurub waan jeclahay waanad ogtahay doontii u horeysay way iga tagtay aniga balse tii labaad ayaan ku guuleystay inaan raaco waxaanu ku guuleysanay inaanu badda ka baxno waxaana noo yimi boolis dress military ku labisan waxayna noo sheegeen inaan dib u laabano dabadeed kabtankii doonta waday ayaa baktiyey matoorkii waxa uu yidhi waa inaan dib u noqonnaa dabadeed waanu laabanay dib ayaanu u noqonnay waxayna nagu celiyeen xeradii waxaanu rabnaa inaanu wax baranno oo nafaha iyagana aanu wax barno waaba intaasuun waxaanu doonaynaa waa meel ammaan ah waxaan rabaa inaan garyaqaan noqdo ma haynaad tidhaahdo waxaad u timi inaad lacag hesho ama aad ka shaqaysatid kaliya waxay arrintu ku xidhan tahay waa waddanka waaba intaasuun maaha in markii aan Agadez aan imiba aan bilaabay qofna ma awoodi kari lahayn inuu gacan u fidiyo muhaajiriinta muhaajiriintu waa xuquuq dhowrsan Agadez magaaladan oo ku taala waqooyiga Niger waa goobta aan go'aansaday inaan dego dabayaaqadii 2017 waana albaabka laga galo dhulka saxaraha ah waa goob muhiim u ah dadka muhaajiriinta ah gaar ahaan dadka ka imanaya galbeedka Afrika ee ku sii jeeda waqooyiga Afrika si ay Yurub uga sii gudbaan magaaladan Agadez waa goobta ugu dambeysay ay muhaajiriintu ku kulmaan inta aysan u gudbin saxaraha goobtani waa halka kaliya ay ku sii nasan karaan kahor inta aysan u sii gudbin socdaalkooda dheer ee 2000 kiiloomitir ah iyagoo sii maraya dhul bacaad badan ugu dambeynna gaadhaya Liibiya waxa aan doonayaa inaan daayahayga saaro sidii ay magaaladan oo 4000 kiiloomitir u jirta Yurub ay hadda u noqotay soo hudinta qaaradda muddo ayay magaalada Agadez ay u ahayd barkulanka dadka muhaajiriinta kuwaas oo qaarkood laga soo caydiyay Algeria ama ka soo qaxayba waddanka Liibiya Agadez waa dariiqa ugu muhiimsan ee tahriibayaasha inta aysan u soo gelin sida sharci darrada ah goobtani waa halka ay basasku istaagaan ee dadka socotada ahayna u baahan yihiin si ay safarkooda u sii wataan tani waxay magaalada Agadez ka dhigaysaa xaruntii magafayaasha Andre waa mid ka mid ah magafayaasha dabagal ayaan ku sameeyay si aan wax badan uga ogaado hawshiisa sida kuwa badan oo halkan ku sugan waxa uu macaash ka sameeyay tahriibinta dadka muddo ka badan 20 sano ganacsigiisu hadda waa mid degan waxaan Andre u raacay dhankaas iyo hoygiisa waa meel 7 kiiloomitir u jirta Agadez j'accompagne André chez lui à 7 km d'Agadez moobilkayga oo hadda jaban waxaan ku hayaa dhammaan meelahan kala xiriiri lahaa waalidiintooda kuwaas oo qaarkood joogaan Afrikos Burkina Faso Senegal iyo sidoo kale Gambia waxaan sidoo kale leeyahay asxaab Gambiyaan ah oo iyaguna maqafayaal ah waxay noqdeen maqafayaal mar walba ii mahadceliya halka marka ay marayso ka hor inta aan sharciga la soo saarin 2015 waqti baa jirtay aysan cidna u baahnayn muhaajiriintu حتى 2009 iyo ilaa 2010 markii uu Qadaafi go'aansaday
inuu albaabada u furo dhammaan muhaajiriinta oo dhan. Waqtigaas waad arki kartay Agadez meeshaaba muhaajiriin baa buuxay, way badnaayeen, xataa qaar ayaaba imanayay iyagoo aan wax xidhiidha soo samayn. way iska noqon lahaayeen oo way sugi lahaayeen si loogu helo gaadiid qaada oo u sii gudbiya Liibiya. gaadiid badan waa joogaa, weliba in ka badan 150 gaari ayaa joogaa. 120 gaadiid ayaa toddobaad kasta bixi jiray iyagoo Liibiya ku sii jeeda. shaah ma rabtaana? muddo sannada ah Andre ayaa si sharci darro ah u daabulayay tahriibayaasha, laakiin tan iyo markii la soo saaray sharciga cusub 2015 magafayaal badan ayaa la qabqabtay. tahriibayaasha Liibiya ku sii socda iyagana waa lagu daba jiraa oo waa la baadhaya. horow soco. Idris ayaa muhaajiriintan ku siiyay. waa imisa qof? waa 3 qof. maya waa 20 qof. 20 qof. hayee xagee markaana ku socdaan? 100,000 oo lacagta galbeedka Afrika ah ayaanu qof walba ka qaadi jirnay. ma qof kasta? xagee ayaa ku sii socotaa? Liibiya ayaan ku sii soconay. magaalada Sabxa waxa uu ku sii waday magaalada Sabxa oo meenta Agadez ka timaadeen ayaa Sabxa ku sii socoteen oo 100,000 oo lacagta galbeedka ah inaad safarkan intan la ku gashaan aad ayay qaali u tahay Soomaha. sidaas ayuu leeyahay oo 20 qof magaarigiisa ayay ku jireen markii la qabtay. waa hagaag oo labada kale iyaguna magafayaalba. waa hagaag xeer ilaalintu wax su'aalo may haysaa? waa la hayaa. hayee wad. maxaa ku galifay inuu sharciga ka hor yimaado? sababtoo ah isagu dee waa darawal, laakiin markaa waxa aad samaynaysaa waxa ay ka hor imanayaan sharciga. waa inaad sharciga u hoggaansanto, xal kalena aad weliba raadsato. maba aha inaan sii daayo. darawalnimadu waad ku shaqaysan kartaa adigoo aan dadka tahriibinba. tahriibinta sharci darrada ahi waa wax aad u xun. tallaabo kasta oo aan ku joojin karona waan samaynayaa. ka ganacsiga sharci darrada ahi ee muhaajiriintu waa dembi. waxaa lagu tiriyaa inuu yahay dembi abaabulan. dabadeed waxaanu ognahay in mangafayaashani dadka iyagoo tahriibinaya ay geynayaan Yurub ay hadhow la soo noqonayaan qoryo iyo hub. had iyo jeer xidhiidh ayaa ka dhaxeeya ganacsiga daroogada iyo hubka. sidaan u arkona sharcigana waa mid fiican, waana la meelmariyay si loo joojiyo. mushkiladaha la soo sheegaya ayaa ah in 100 qof haddaanay kumanaanba ahayn oo walaalaheen ahi ay dhinteen, kuwaasoo isku dayayay inay u gudbaan Yurub. intii lagu guda jiray ayaa ay qabteen sidoo kale 5 ka mid ah darawalada. xabsiga ayaana la dhigay, waxaana ay xabsiga ku jireen muddo 8 bilood ah. waxaan bixiyay ganaax 30 milyan lacagta galbeedka Afrika. gaarigana way soo qabteen, wali halkaas buu yaalaa, waana uu xiran yahay. hadda gabigayga busaarad ayaan ahay. hadda baaskiil yar baan iska wataa oo waan ku soo yara wareegaa meelahaas.
intii aan la jidayn sharcigan 2015 mar baan ku baabi'iyay 100 jirikaan 2 toddobaad oo kaliya laakiin intii uu sharcigan hirgalay waxaan iibiyaa 1 ama 2 jirikaan marmarna ka qaarna waxba laygama iibsado noloshu hadda waa iska adag tahay laakiin dulqaad uun baan ku joognaa marmarka qaarkood kharash aad u yar ayaa ku soo gelaya marmarka qaarna waxbaba ku soo geli maayaan saddexaas iyo 23 carruur ah ayaan leeyahay alaabtan waxaan ku qoodiyaa qoyskayga dulqaad uun baan ku joognaa ee waynu arki sida ilaahay inoogu arrimiyo ma Nigeria ayaad joogtay ها نيجيريا يوليبا ليبيا بوان شوغي ليبيا ها ليبيا ايان شوغي نيجيريا ايان شوغتي ها ليبيا با ليبيا wannan kuma kwace ne ni ban kwace wannan kuma kwace ne ko ba gaskiya ne ta ne shi wayo haka ke amma kuma kwace da ban Andre waxa uu quudkiisa ka helaa tahriibinta rakaabkuna waa dhif iyo naadir laakiin saaka waxa uu ii sheegay inuu jamaaca cusub u helay waxa uu rabaa inuu xidhiidh la sameeyo tahriibayaasha halkaa ku sugan waxaanu iga dalbaday inaan sii raaco iska warrama cawaysin wacan soo maaha cawaysin wacan kabaha iska xidhnow buu ku yidhi haye waa inaynu ku ducaysanaa inaynu si ammaan ah ugu gudubno Yurub inoo ducee hadda Yurub baynu rabnaa inaynu u gudubnee insha Allah goormaad rabtaa inaad Talyaaniga gaadhid ma garanayo waxay ku xidhan tahay qofka tahriibaha qaarkood halkan waxa ay joogeen 2 bilood ee u dambeeyay qofka safraya iyo xifradiisa ayuunbay ku xidhan tahay intee in la eg baad halkan joogteen 2 isbuuc ee ugu dambeeyay 2 toddobaad ee u dambeeyay ma garanaysaa intee in la eg ayaad sii sugi doontaan maya ma Liibiya ayaa tagaysaa mise Algeria waxay ku xidhan tahay qofka ku kaxaynaya iyo waliba khibradiisa haddaanad lacag haysan ma dooran kartid meesha aad maraysid waa taas dhibtoon nasiib wacan baan idin rajaynayaa markastana waa inaad Ilaahay baridaan haye waan idin garab geli doonaa taasi waa hubaal ma inaad wax karisaa ayaad doonaysaa
in aan wax kariyo dooni maayaan iyagu sida wax loo cuno ayuunbay tani taqaanaa waxay leeyihiin ma karan kartid maba ogola inaan wax kariyo rag da'yar ayaanu nahay annagaana wax iska karsana maalin walba cashada annagaa samaysana waxay leeyihiin wax ma karan kartid maba ogola inaan wax kariyo naaho intanoo bal naga aamus waa inaad isku duubnaataan waa inaad isjeclaataan midkiinba midka kale saxaruhu waa mushkilad aad u weyn ul iyo diirkeed ahaada mar walba nin kastaa ha isku dayo inaan wax dhibii soo gaadhin haba yaraatee waxaagu waa wixiisa waa sida keliya ee aad kaga gudbi kartaan saxarahan dhibta badan markii aan arkay tahriibayaal isqarinaya sidan oo kale waa wax hadda dhif iyo naadir ku ah Agadez tahriibayaasha ayaa intooda badan 2 iyo 3 ugu nool guryaha 50 iyo Bobakar waxay Agadez ku noolaayeen muddo bila ah waxaanan go'aansaday inaan muddo maalmo ah aan la soo qaato iyagana Fifty waxa uu ka yimid Guinea waa nin makaanig ah si kadisa ayuun bayna ugu dhalatay inuu Yurub tago shandadahaygii waan xidhay markiibana geerashkan ka yimi ayaan tegey niman gaambiyaan ah oo aanu asxaab nahay ayuun baan arkay iyagoo gaadhiga kuba sii jira waxa ay weydiiyeen halka aan ku socdo waxaan ku yidhi dhankaas iyo Angola ayaan tegayaa laba aan walaalanahay oo iga waaweyn ayaa halkaasi jooga waxaanu gaadhnay ilaa iyo Mali Bamako waxa ay igu yidhaahdeen waar waxaas iska ilow Bobakar waxa uu ka yimid Gambia sida 50 ayaa waxa uu sii dhaxmaray jidka dheer ee daran ee Libya waxaana uu sugayaa in qoyskiisu ay u soo diraan lacag si uu iskugu dayo mar kale inuu Yurub tago Babylon waa meel wacan Lampedusa Yurub waa meel asala Yurub waan jeclahay waana ogtahay oo maxaad adigu Yurub ku jeclaatay de Afrika ayaanu joognaa waxaanu cabaynaa eeg gebigiisaba bac ayaa uu ku jira maya adigu halkaanu dhex jiifno eeg bal halkan noo hoy ah eeg hoy fiican ma haysto arrinku ma sahlana waa sidii aanu khamaarayno oo kale waxaana ka fikiraa inaan casho heli doonayo in kale waxa ay ku xidhan tahay Yurub sidan waa ay ka duwan tahay Yurub waa tu fiican
yurubtu waa meel fiican yurub waa meel asal ah afrika warkeeda waynu haynaaye bal aynu tagna yurub oo aynu soo aragno waxaannu xiisaynaynaa inaannu wax ka ogaanno iyo inaannu sidoo kale soo aragno miyaanay ahayn waxaan doonayaa inaan tago yurub kuna shaqaysto makaanig taasi waa taan doonayo oo adigu halkan maxaad uga shaqaysan weyday maya halkan shaqadaydu way adag tahay sidiina oo kale uma shaqayno sida caddaanka oo kale ma nihin caddaanku kombiyuutarada ayay aad ugu shaqeeyaan anigu waxaan rabaa inaan soo ogaado sida kombiyuutarada loogu shaqeeyo marka intaa aan soo shaqaysto hadhowna aan dalkayga ku soo laabto ayaan rabaa 2 sano baan halkaa ku maqnaan lahaa warku waa kaas hooyaday 10 sanaba maan arag inaan hooyaday arko ayaan rabaa wallaahi Gini ayaan kula kulmay waxay ahayd xaamilo 7 bilooda ilmaha isitaa ma wiil baa mise waa gabadh way soo eegtay waana wiil markaa ma ku faraxday haa markii ay ii sheegtayba xaflad ayaan qabsaday aweyskiiba ilaa iyo Rimbo Ping ayaan lug ku tagay gabadha markaa ma jeceshahay aad iyo aad baan u jecelahay maahee haa wallaahi waa bandhaartay magaceedna waxaa la yidhaahdaa Jaligato ma Gini bay ka timinaa haa sidee bay Yurub ku tagtayna sax halkan bay markii hore timid waxay sheegtay inay waraaqaheedu ay Gini ku diyaarsanaayeen laakiin way tagi kari weyday ilaa aniga ay iga sii aragtay waxaan ku uri haye waaniga Agadees imi halkan bay timi waxaanu halkan joognay ilaa iyo 4 bilood ayaanu halkan wada joognay dabadeedna waxay ku noqotay Gini halkaas ayayna diyaarad ka raacday oo ay Jarmalka tagtay ma diyaarad bay ku tagtayna adiguna maxaa diyaaradu raaci weyday lacag baanan u haysan waa imisa safarka diyaaradda lacagtiisu ma garanayo nabadgelyo nabadino iyo nooli kulante naftan siisa sabaya samir baan ku noolaan adoo nabada soo nooq nasiib wacan la soo kulaan nabadgelyo nabadino iyo nooli kulante naftan siisa sabaya samir baan ku noolaan adoo nabada soo nooq nasiib wacan la soo kulaan wariyad cod baa kugu jire That's the compass man there. See the captain inside here. Yeah, new escort there. This one.
ninkii carabka ahaa ayaa i qabtay oo i geeyey ashwaarif waa ka hor intii aanan Tripoli gaadhin muddo 7 bilood ah ayaan halkaas ku sugnaa waxa uu igu dhex xidhay container maalin kasta waa uu garaaci jiray nasiib darro waad og tahay inaanu arrinku sahlanayn waxa uu igu xidhay meel aan cidi joogin daaqado iyo albaabtoona aan lahayn waxay ahayd rafaad aad u daran waxay ahayd wax aan la qiyaasi karin dib aan yarayn ayaa iga soo gaadhay jirdil mararka qaar asxaabtiisa ayaa inta ay yimaadaan konteenarka furi jiray oo ay nagu odhan jireen maanta waad dhimanaysaa intay soo sakhraamaan ayay haddii ay doonaan iska kiin tooganayaan laakiin nasiib wanaag maalinna xabadooda iguma ay dhicin aniga aad bay ii cabsi gelin jireen si aan markaba lacag u bixiyo laakiin ninka waxaa watay isagoo maalinna ima garaacin imana dhibaatay inkastoo uu badanaa ul yar iska sidan jiray haddaanu ul sidanna hir yar ayaa u sidan jiray jidhkaygu wuu socday haddaad ii arki lahayd waad iga nixi lahayd intaa kadib waxa uu ii qaaday Burak al-Shati tuulada ku xigta Sabha ee la yiraahdo Burak al-Shati waxa uu yiri waa hagaag waa tan beertaydii waxaan rabaa inaad beerta ii joogtid oo aad iga shaqaysid waxaan ku yiri waa yahay dhib ma laha haddii aan ninkan caawiyo wax badan baan soo rafaaday tani waa ta kaliya ee uu igu ogolaan lahaa inaan tago ee waa inaan u sabraa xoogaa baan ugu yara sabray la soco meeshu waa beer aad u weyn dirweynta ayaa ay beeri jireen meesha waxaa jooga ido lo iyo riyoba waxaa soo dhami waa aniga qofka kaliya daryeela hadday daaqayntooda tahay iyo hadday soo dabaalistooda tahayba soo imaad fahmin xataa hadday tahay dhirta waraabintooda hurdaba waan ladi waayay hadday rakaab helaan halkaas uunba ay keeni jireen halkaas uunba ay ku soo daadiyaan Buubakar ayaana dadkaas daryeela waan soo laabanayaaye hadday biyo iyo cuntoba tahay anaa siiya marka isaga waxaan uga dhiganahay uun qof adoona waqti alle iyo waqti kasta oo isagu u baahan yahay waan u shaqeeyaa dabeeta inaan baxo ayuu ii ogolaaday soo hadda ilama socotid rafaadka meeshaasi nagu haystay xabsiyo ayaa meesha hore xataa uga jiray magafayaasha ayaa waxay samayn jireen inay yidhaahdaan matahriibe ayaa tahay liibiya ku socdo lacagtaada isii waxaan wicin magafa kale waxaan ku odhan markuu halkaas tago ayuu lacagta bixinayay markaad halkaa tagtid af carabi ha ku hadlin mana garan kartid magafaha kale siduu noqon waxay ku odhan sow hebel hebel ma tihid marka tiraadaha dhinac ayay isku taag oranayaan adigu moobilka ayay ka qaadayaan lambarada oo dhan way baadhayaan waanay wacayaan waxaanay ku oranayaan qofkan ma garanaysa waalidkiisii wax number ma ka haysan waan hayaa haddaad tiraahdidna waalidkooda wac una sheeg inuu xabsi ay ku jiraan waxay u diraan muuqaal aad u naxdi badan iyadoo waliba lagu garaacayo iyadoo qofka la jirdilay la xidhay uu qofkuna ooyayo waxa ay weydiistaan lacag adiga ayaana lacagta geynaya meel loogu talagalay waaba ficilada aynu aflaanta ku daawan jirnay oo kale haddii uu waalidku ku raahdo lacagta bixin mayno isla markaaba way ku dilayaan waxa iyagu damba kama galaan waayo waa kuwa arxan laawayaal ah oo shaqo silan oo aad u xun dadku daacada waad ka helin kartaa halkan kuwa ku garab galaya dariiqooyin iyo fursado cusub ku tusaya halkaasna waxaad ka helin doontaa ammaan iyo xasilooni kumana dhibayaan mana bixinaysid isla markaa aad timaadid badanaaba darawalla ayaa qaada iyadoo aan ujeeddo xun laga lahayn waxaanay si nabadgelyo leh ku geynayaan liibiya hadday kolonyo ciidana arkaanna way isku dhex yaacayaan matahriibayaasha ayay baadhayaan markaa
oo howlgal ayay ku jiraan maya waxay eegayaan uun wixii hubaysan magafayaashu intay dadka daadiyaan ayay yaacaan dadkana halkaasunbaa looga wada yaacaa waxaas ma garanayaan saxaruhu meel la socon karo ma aha marka ay biyuhu kaa dhammaadaan waa inaad meel yara joogsataa ha quusan rajo wacanna filo haddaad rajo wacanaatid laga yaabaa in alla kuu soo diro qof kaa badbaadiya dad badan ayaa sidan ku dhintay way socdaan iyagoo safaf dhaadheer ah aakhirkiina kuwa ka mid ah ayaa dhinta waana sababta ay sidaas u leeyihiin saxaruhu wuxuu noqday goob qubuureed hadda waxaa meeshaba haysta meydad tan iyo 1991 midowga Afrika waxa uu kor u qaaday socodka muhaajiriinta gudaha waxaana loo arkaa inuu yahay il dhaqaalaha kor u qaadaysa iyo qaab lagu xakameyn karo faqriga qaaradda wadamada galbeedka Afrika ee dhaqaalaha ku midoobay ee la yiraahdo ECOWAS kuna naalooda inay dadkoodu si xor ah isku gudbaan si xorna isku dhexmari karaan wadamadaasi qof kasta oo ka mid ah wadamada galbeedka Afrika waa u xor inuu ku dhex safro wadamadaas si xornimo ah laakiin haddana tahriibayaashu waa inay sitaan dhalashadooda iyo waliba warqadahooda waxa naloo sheegay markay Agadees gaadhaan inaan wax warqad aba haysan magafayaasha ayaa la wareegaya warqadahooda safarka waana halka ay sharci darrada koobaadba ka bilaabmato waana halka uu sharciga 2015 isla 36 uu ku dabaqmayo goobtan ayaanu ku daadinaa kaararkayaga aqoonsiga ma Agadees ayaad waliba kaga tagtaa halkan ayaanu ku daadinaa kaararkayaga inta aanan bixin sababna waxaana loo sheegay haddii ay arkaan kaararka aqoonsiga ee waddanka Guinea ama reer Senegal ama Gambia wayna dilayaan sidaas ayaana loo sheegay qaar ka mid ah magafayaasha ayaa tahriibayaasha u sheegay inay markay soo galayaan Agadees in ay soo qaataan warqadahooda ay haystaan dabeedna ay iska tuuraan maadaama aysan macno u sameeyeen waana ay iska kindhaadhicin doonaan markay arkaan inaad tahriiba tahay ayay waliba dib ku celin doonaan tan way cabsi gelinaysaa iyaga sharcigu kaama hor istaagayo inaad Liibiya ka tagtidna Agadees laakiin waxa sharci darro ah inaad Agadees ka tagtidna Liibiya Agadees waxay sidoo kale hoy u tahay dadka ka soo caymaday dhankaas iyo Liibiya ama kuwa laga soo diiday Algeria ururo badan oon dawli ahayn ayaa halkan yimaada si ay dadka u caawin lahaayeen kani waa muuqaal duleedka magaalada ah waxaana loo dhisay dadka badana la soo diiday ay ciidamadu ka soo kaxeeyeen xuduudka Algeria dadka ugu badan ee halkan ku sugan waxay ka yimaadeen Niger kumay socon Yurub balse waxay rabeen inay nolol wacan ka dhex raadsadaan Algeria gudaheeda dhawaan ayaa la filayaa inay dalalkoodii dib ugu laabtaan wixii aan ka soo jeedin Niger waxaa lagu wareejin doonaa hay'adda socdaalka adduunka hay'adani waxay caawisaa kuwa sida iskood ah raba inay dib ugu laabtaan dalalkoodii waxaana loo qaadayaa dhankaas iyo Agadees kadibna halkaas bas ayaa ka sii qaada oo geynaya Niamey halkaas oo ay diyaaradda ka raaci doonaan si ay dalalkoodii dib ugu laabtaan mararka qaar tahriibayaasha ayaa yimaada iyagoo guutooyin ah sanadkii 2018 bishii January in ka badan 1,300,000 oo kun oo qaxoonti Suudaaniyiin ah ayaa halkan yimid
mudasir waa 20 jir waxaana uu ka yimid daafuur oo ah goob ay dishoodeen dagaalo sokeeye oo ka socday tan iyo 2003 mudasir waxa uu ku noolaa xeryaha qaxoontiga muddo 6 sano ah ka hor intuusan go'aansan inuu u jihaysto dhankaas iyo Liibiya 11 sano ayaan jiray waxaan sidoo kale ku jiray fasalka saddexaad wax badan kama xasuusto waana intaasuun waxaan ka xasuustaaba iyo inaan tuuladeydii ka imid oo aan ku sugnaa Al-Junayna ee Darfur Al-Junayna waxaan uga jeedaa xerada qaxoontiga ee Al-Junayn intaas ayaan hadda xasuustaa uun waad ogtahay qaar naga mida ayaa inta la qabtay dabeeto xabsiga loo taxaabay qaarka iyo waxa dilay jabhadda Janjaweed suuqa ayaan tagay oo aan ka shaqaysanayay dabeetana Liibiya ayaan imiday qof baa na iibsaday muddo ayaan halkaas joogay waana la ciqaabay xataa 15 cisho ayaanan wax cunto ah arag biyo baa qoodi ahaa maalinta dhan ayaa hal koob oo biyo ah laysiinayay dabeeta 15 cisho kadib waxa uu sheegay sidaan ku shaqayn lahaa waxaanu igu oran jiray haddaad shaqaysan weydo mar kale ayaan ku ciqaabi doonaa استبت qorshahaygii koobaad ee aan halkan ku imid waxay ahayd in ururadu ay bal haddii ay inuu wax xal ah noo hayaan taasaa wacnaan lahayd haddii ay sidaas yeeli waayaanna anigu Liibiya ayaan dib iskaga laabanaya laakiin sawdigii lahaa inaan Liibiya tago waan iska qoomamaynaya rajadaada iyo rabitaankaaga ayaa ku hogaaminaya waa inaan raacaa rabitaankayga markaas isma lihi rajo dhig haddii ay hal meel ka soo xidhanto waa inaad meelo kala furi kartaa markaas dariiq cusub baan furaya haddii ay tan iga soo xidhanto dariiq cusub oo kale ayaan raacaya waxaan u soo laabtay inaan Andre arko si aan u su'aalo waxa ay tahay mas'uuliyadiisu magafayaasha ayaa badanaa noo arka inaanu dambiilayaal nahay iyaga la'aantoodna tahriibi may jirteen si ay lacag uga sameeyaan dhibaataynta dadka iyagoo oo dadka qaadaya Liibiyana geynaya iyagoo aan ka warwarsanayn dhibaatada ka dhalan karta bal markan waxaan rabaa inaan ogaado aragtidiisa anigu
khalad kuma lihi keliya waan tahriibinaa uun dadka anigu meel uun baan kugu tuuri oo waan kaaga tegi waana kaas warku waxba ha ka hadlin dhibaatadan arrintan ka dhalan kartaa aniguba inay taasi dhacdo maan rabin ilaahayna u mahad celiya yurub dadku waxay nagu yidhaahdaan dambiilayaal ayaa tihiin laakiin reer yurub ayaa labada dambiilayaal ah sababtoo ah reer yurub waxay yimaadaan nijeer tusaale ayaan ku siinayaa siiba ahaan faransiiska waxay dhacaan macdanteenna dhulka ku duugan yuraniyamta ayay iskala baxayaan wax kastoo dhulkeenna ku jira dabadeeto heshiisyo yaryar ayay madaxdeenna iskala galaan iminkana waxaynu leenahay yurub ayaanu tegaynaa si aynu uga soo shaqaysanno oo aynu lacag uga soo helno si aan u badbaadino qoysaskayagaas ayaanu u noqonnay dambiilayaal laakiin markaaynu dhab ka hadlayno iyaga ayaa dambiilayaal ah iminkana waa kan qadaafi dhintay dukaamada qoryaha lagu iibiyo cid walba way u furan yihiin wax sharci ah ma jiraan waa ninkii roonow reerka u hadh maryam waxay ka timid nigeria weligeed kuma aysan riyoon inay yurub tagto waxay tagtay liibiya si ay u furato meherad dumarka qurxisa waxay rumaysnayd inay halkay ku socota ay ka dhaqaalo wacan tahay halka ay joogto oo ah Lagos siiba ahaan waqtigii uu talada hayay Qadaafi markii ay baska sii saarneyd ayaa tahriibayaal kale kula taliyeen inaysan halkaasi tagin marnaba balse gacmo maran kuma ay soo laaban karin waxaana ay iska joogtay Agadez iyadoo ka shaqo gashay baararka sidoo kalena jidhkeeda ka ganacsata waxaana ay kaydisay kharash ku filan si ay ugu soo laabato dhulkeedii maaha in markii aan Agadez imiba aan bilaabay maya waxa igu qaadatay bil ilaa 2 bilood meelahaas sababtoo ah waxaan u baahday lacag dabcan haddaanad sidaas samayn iyo haddaa ku caawinaya iyo lacag ku siinaya waa cidnaba ma heli kartid qofna iyo ku caawinaya weliba markay arrintu lacag noqoto qalbiga ayaa ku jabaya sababtoo ah arrintu sidaad mooday maaha waxaad nolosha u huri kartid waa intaas waanad qalbi xumaanaysaa sababtoo ah maaha shaqo aad ku niyadsanaan kartid ma sidan oo kale ayaa ku dhacda gabadh kasta oo Nigeria ka timaada oo halkan joogta maya waa rabitaankayga dalkaaga waad iskaga laaban kartaa waa rabitaankayga maaha Nigerian oo qura wadamada intooda ugu badani halkan ayaa ay joogaan istaag tan waan dilayaa runtii waan ku qaaraajinayaaba waxaa jirtay maalin aan nin u adeegayay waxaana uu igu yidhi maryanay ha isalaamin waan naxay waxaanan ku udhi iga raali noqo halkan kaamaan filanaynba ninkii waaba isbedelay dhirbaaxa ayuu wejigaygaga dhuftay haddii ay Nigeria ahaan lahayd dadku waa istaagi lahaayeen oo ay ka dhiidhiyi lahaayeen waxaana ay dadku odhan lahaayeen waarinantu waxba kugumay samaynba laakiin Niger dadku waa ay ku daawanayaan waxba uma arkaanba mana danaynayaanba qaraabadeedana ma tihid waxna uma tihid maba qusayso warkaasi iyaga runtii ma jecli Agadez waaba qaab nololeedkeeda qaabkay u jaasaan waaba qosol intaad eegto ayaad odhanaysaa waaw war waxay jaaskaasi xataa heesahooga ayaaba qosola waan hubaa inaad fahmi kartid haddii aad waddan kala tegtid wax badan ayaa kuu soo kordhaya
waan soo wada iibsaday lacag ii hadhay ma jirto inta yar aanan haysta ilaahay baan ugu mahad celinayaa marka Nigeria ka tagtid ee Liibiya tagtid qiyaastada intee oo lacag ah ayaad u baahan tahay waan ka fikirayay in aan haysto 700,000 oo niira inay igu filan karto si aan ganacsi ugu furto hadda waxaan haystaa 370 euro ha waa 370 euro inay si fiican igu filaanaysan filaya si aan wax yar ugu gato uun waqti kasta waxaan arkaa qoysas badan oo faqrigu si daran u saameeyay shaqaale la'aantu waxay ka mid tahay caqabadaha dul hogan Agadez dadka shaqada la ayaa si fudud waxa u qorta kooxaha argagixisada ee ka dagaalama Mali iyo Liibiya dawladda dalka midowga Afrika iyo kuwa kamid ah hay'adaha aan dawliga ahayn ayaa waxay gaadhsiiyaan agab gurmad ah qaar kamid ah tahriibayaasha ugu badan kuwaas oo keenay qorshe dib u noqosho magafayaashii hore ayaa lagu qiyaasay inay heli jireen lacag lagu qiyaasay 2,300 oo euro iyaga oo agabka dhismaha ama cuntada iibsanaya si ay u bilaabaan ganacsi cusub laakiin arrimo badan oo jira intani Finland ma aha marka la joogo Agadez de la remise des kits aux bénéficiaires des activités géographiques du revenu et aux actions de la reconversion. Le métier de passeur n'est plus mukhalisnimadu ma aha wax uu hadda dheef wanaagsan uu ka helo Andre waxaana uu go'aansaday inuu shaqadaas iskaga hadho si uu mid kale u raadsado ayaa isla haddaba Guinea ku laabtay laakiinse Abubakar wali waxa uu ku sugan yahay Agadez 2019 bishii May Mudassir waxa uu ku sugnaa Tripoli waxaana hakiyay dagaaladii Liibiya ka dilaacay taas oo markii dambe fursad u noqotay soo noqoshadiisa kadib markii uu dhacay Umar al-Bashirkii Suudaan wali agtidiisu waa sidiisii oo wax badan iskama bedelin waxa uu rabaa inuu ka dhabeeyo riyadiisii ahayd inuu sharciga ka soo barto dalkaas iyo Ingiriiska Maryam waxay ku laabatay Lagos halkaas oo ay ka furatay salon dumarka qurxiya aniguna waxaynu isku arki doonaa dhankaas iyo Agadez halkanna ana si xor ah u doortay imaanshaheeda muddo sanad ah ayaanan ku sugnaa anoo dhageysanaya qisooyinka dhiilada ah ee ka soo burqanaya saxaraha ay ka mid yihiin jirdilka iyo adoonsiga loo geysanayo dadka meydadka lagu tuurayo badweynta Mediterranean-ka waa maxay sababta wadamo badani aysan si xor ah ugu socdaalin karin wadamo kale sharciyada socdaalka ayaaba ah kuwa iyagu iskhilaafsan oo iska soo horjeeda ee ku aadan in si xor ah la isku dhex socdo sharcigii 2015 waxa uu hoos u dhigay dadkii tirada badnaa ee tahriibayay kuwaas oo nafahooda khatar badan gelinayay laakiin sharcigani waxa uu halis badan ku yahay kuwa hadda raba inay tahriibaan iyagoo ka baaraan degaya meelaha istabooyinka ee lagu baari karo waxay tagayaan iyagoo go'doonsan si ay u raadiyaan nolol ka wanaagsan tan ay hadda ku jiraan